maayarka degmada Boorama Mudane Saleebaan Xasan Xaddi ayaa maanta ka waramay dhismaha jid laami ah oo ay maanta daamurka ay dhigayeen. Dhismaha jidkan oo dhererkiisu dhan yahay 1 kiiloomitir iyo bar, isla markaasina isku xidhi doona xaafadaha Sheekh Makaahil iyo Sheekh Ismaan ee magaaladani Boorama. waxaana halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warramay maayarka degmada Boorama Saleebaan Xaddi. waxa uu sheegay faa'iidada uu dadka u leeyahay jidkan. maanta 1 kiiloomitir iyo dhowr boqol mitir ah waa mashaariicdii gabagabada ka ahayd mashaariicdii 2013 oo runtii maalmahanba lagu jiray waana jidkii ugu weynaa magaalada Boorama dhexmara laga qabto inta laamiyadu ka bilaabeen magaalada. waxa weey waa laba xad oo u baahan waliba in lagu sameeyo extensionka mustaqbalka hadii la yiraahdo waana wadada ugu weyn ee mainka ah ee magaalada dhexmarta ee loogu talagalay capacity-ga ay leedahay inay gaadiidka waaweyn ay maraan hadii la yiraahdo wada kaysaan dariiq sida uu dhismayo horumarka degmadu sidaas isku daba jooga. imikana feasibility study baanu sameynay arbacadii waxa la bilaabayaa mashaariicda 2014 hadii la yiraahdo oo intooda badan jidadu badan way dhibaatada kaliya Boorama haysa waxa weeyna way jidad la'aan. waxaan ugu talagalay in wax ka qabanana waa xagga jidadka hadii la yiraahdo bulshada waxa ku wargelinaynaa sidii wasiirku wareegtada ku soo saaray annaguna aanu hirgelinay in lagu dhaqaaqo qof walba inta 3 mitir ka soo horeeya inay soo dhisaan soo dhigaan marmarka ama dhagaxa ka barsoonka inuu diyaarnaa hadii la yiraahdo cidda inta ka soo bixi weyda ganaax bay mutaysan doonaan. waayo bilica magaalada inaan ka wada qayb qaadano inaan magaaladeena qurxino waajib bay naga saaran. waxaan idinku wargelinay dadkiina ku soo jeeda laamiga marka imika taa laga faraha laga qaado iyo kuwii hore loo dhisayba inaad 3 mitir idin ka soo horeeya waajibkiina aad ka soo baxdaan oo aad soo saartaan marmar hadii la yiraahdo si aad idinku biyaha uga nabad gashaan iyo siigada ka laabaysa meesha hadii la yiraahdo inta idin ka soo hadhay ayuu waajib laga saaray inaan dhamaystiro wadada inteeda kale inaan dhamaystiro laakiin 3 mitir waa inaad soo dhistaan horena waa idinku sheegnay imikana waa idin sidoo kale waxa isaguna ka hadlay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama xildhibaan Ilkaase waxaana hadaladiisi kamid ahaa ugu quruxda badan waxa weeyaan waxaan jecelahay dadweynuhu in ay ka qayb qaataan horumarka sidoo gudoomiye sheegay annagu waxaan dhisaynaa jidka bartaka ee laamida dadweynaha laga rabo inta ku soo jeeda jidka saa inay iyagu soo dhisaan sidii wareegtadu sheegay kasad maayarku ee wasiirku soo saaray. waxa weey waxaan ballan qaadan lahaa hadii la qaado inta xilliga aan joogno diilaan ugu sumo inay Boorama noqoto wada jidad iyo wada laamiyo. sida darteed waxa weey maanta waxaad arkaysaa in wadadii ugu balaaneed oo shubayo waxay farxad bay noo tahay anagii dadweynaha. waxaan jecelahay inaan nagala qayb qaato horumarka annagu waxaan jecelahay horumarka oo wixii aan ballan qaadno markii aan golaha deegaanka walaalayaashada ku jirtay waxa weey annaga waa naga dhab. si kastaba ha ahaatee dhismaha jidkan ayaa waxa uu noqon doonaa mid wax weyn ka tara isu socodka caasimadda labaad ee dalkani Somaliland, isla markaasina u sahli doona gaadiidleyda inay kaga gooshaan xaafadaha waaweyn ee Sheekh Ismaan iyo Sheekh Makaahil ee magaalada Boorama. sidoo kale waxaa xusid mudan in gaadiidleydu ay u qabeen jidkan baahi weyn. Cabdicasiis Asad Muuse, Xeega News.com, magaalada Boorama.